أنا أدي أدوم هالنقية شغالها هرجيس جروب أو أقسمها هي كلين كي استاك سووا ريان هوش هذا جاي هيان عريس بدن شونتي صافور ودينا والبقى ودوي دعابية وكل دعايو إن بالشدة السومالي لأن الأختار كحولنا إيمانيسا كارهم فاميليادو إن يريان ترافيك هذا إيه وما درك ضد كم بدن إسسور راعية. isbitaalkii hore wuxuu ahaa kaa ku yaala nimanka meeshan maxkamaduhu ay yihiin isbitaalka imka TB-da ah ee xanuunada feedhaha lagu daweeyo wuxuu ka sameysnaan jiray Tambuk a military hospital buu ahaa maanta waxaa inoo farxada inaynu la jaan qaadno cusbitaalada hadda caalamka inuu noo noqdo cusbitaalka dambe cusub ee noo dhismi doonta 2 sano ka bacdi mid midho dhala waxtarna u leh lagana maarmi karayo maanta dalka dibaddeeda in wax qabad ama adeeg cusbitaal aanu ka feen karin looga baahdo dibaddeeda Dr. Aadan Ismaaciil aabaheed baa wuxuu ka ahaa director oo dadkii markaa Ingiriiska cusbitaalkan oo casri ah iyagu markaa levelka waxa la dhisay 350kii cusbitaalka aniga isku daabaanay مسؤولية قادين أقاسمها يا قاسم كحيون كوجود تعين إن لها وفضيليو anigoo arkaya hawsha hayaan culayska leedahay madaxda wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo maamulka cusbitaalka guud ee Hargeysa ayaa maanta ka qayb galay munaasabad xusuus reeba oo ka horeysa duminta dhisme taariikhiga oo ku yaala cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa dhismaha la duminaya ayaa lagu bedeli doonaa dhismo cusub oo casri ah oo lagu magac daray Taiwan Medical kaasi oo kor u qaadi doona tayada adeegyada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ugu horeyn agaasimaha guud ee cusbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Axmed Weli Daahir Xaddi ayaa ka hadlay munaasabada isagoo ka sheegay taariikhda iyo kaalintii uu dhismuhu uu ku lahaa adeegyada caafimaadka runtii farxad maanta noo ah hambalyana aan noo ah in maanta nagala soo qayb galaan xafladan oo aan mahad celinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Adna Hospitaalka mataqaanaa Adna Hospital runtii aan meel dheer nooga timiday iyo mataqaanaa ambassadorka Taiwan Mr. Allen waxa kale oo aan mahad celinayaa dhammaan bahda caafimaadka shaqaalaha Taiwan maanta runtii waxaan halkan isugu nimidnay xaflad runtii taariikhiya weeyaan waxaan noo bilaabmay maanta runtii waxa weeyaan waxaynu doonaynaa in caalamka la jaan qaadno cusbitaalka Hargeysa Group Hospital oo muddo hore la dhisay 1953 maanta waxaa inoo farxada inaynu la jaan qaadno cusbitaalada hadda caalamka sidaad ogtihiin waxaynu ka sheekayn doonaa haddii la yiraahdo taariikhdiisii waxaynu ka sheekayn doonaa haddii la yiraahdo mashruucan horena waynagii u daafurnay laakiin maanta waxaan ugu talagalnay xusuustii uu ahaa cusbitaalku uu lahaa awal iyo maanta halka uu u jaan qaaday ama jihada uu jihaystay inuu cusbitaalada caalamka la jaan qaadi doono waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dawladda Taiwan oo runtii inoo hawshan cusbitaalka lagu dhisayo mas'uuliyadeeda qaadatay oo ku caawinaysa wadanka Soomaaliland aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dawladda Taiwan waxaan insha Allah taala ogaan doonaa maanta waxaan ka cusbitaalku sida uu eegyahay wada aragtaan 2 sano kadibna waxaan ogaan doonaa sida uu noqon doono haddii la yiraahdo cusbitaalkaas sidoo kale mas'uuliyiintii kale ee madasha ka qayb galay ayaa hadalo istaba jooga ka jeediyay iyaga oo xusay marxaladii kala duwan ee uu soo maray cusbitaalka guud ee Hargeysa gaar ahaan qaybta la duminayo taariikhda cusbitaalka iyo dhammaan martisharafka taariikhda cusbitaalka haddaynu ka hadalno horta cidda ugu gacmo dhuudhuuban waa Aadan Ismaaciil Dr. Aadan Ismaaciil aabaheed baa wuxuu ka ahaa director oo dadkii markaa Ingiriiska cusbitaalkan oo casri ah iyagu markaa levelka waxa la dhisay 350kii cusbitaalka aniga isku daabaanay the same age as me from that day I remember as a child I had a tonsillectomy a room which is not very far from us here just in the corner. The standard was very high at that time. That building was the kitchen. And the kitchen, when they are cooking, you can smell the food. Very nice food from a distance. maanta farxad weyn bay ii tahay inaynu munaasabadan qaaliga ah aynu ka soo qayb galno taariikhda inteedii badnayd Dr. Askar baa sheegay qaybtan caruurta
waxay half payment iyo halkan la oran jiray payment bay dhinaca payment baa jiri jiray xagga ugu shisheysay ugu baalaysan waxay ahaan jirtay qaybta ilkaha x-rayadii qaliinadii hore qaliinadii dambe la sameeyey qaybo badan buu cisbitaalku lahaa taariikhdiisa marka aynu ka hadalno cisbitaalkii hore wuxuu ahaa kaa ku yaala nimanka meeshan maxkamaduhu ay yihiin cisbitaalka imika tbda ah ee xanuunada feedhaha lagu daweeyo wuxuu ka samaysnaan jiray taambuug military hospital buu ahaa taambuug baa dadka lagu daweyn jiray meesha keliya ee dhagaxa waxay ahayd theatrka iyo qeyb ugu xaggan dambe oo maqsino gaara leh oo payment ward la oran jiray iyo Ruth Fisher Clinic oo waa qeybta bukaan socodka ee haweenka loogu talagalay Ruth Fisherna waxay ahayd the wife of the governor Fisher gabadhiisii magaceedii ayaa loogu magac daray markaasaa Ruth Fisher Clinic la yidhi waxaanay noqotay halkii markaan ka soo noqday Ingiriiska Djibouti ka imid 52 kana weli aan la dhammaynina gacanta lagu hayay halkii ugu horeysay ee aan ka noqdo kaaliye la shaqeeya gabadha dhakhtarada ay ka shaqeysa oo turjubaan baan ahaa 14 jir baan ahaa marka patientska ay arkayso ayaan uga turjubaani jiray af Ingiriisi iyo af Soomaali baan uga turjubaani jiray marka iyada loo yeedhana waa la ii yeedhi jiray waxa ahayd markii ugu horeysay aan arko qof ilmo dhalanaya runtii dee munaasabadda waa munaasabad qaaliya oo aan isleeyahay maanta waa xusid la xusayo cusbitaalkan taariikhda dheer uu joogay waxaana rajeynayaa inuu noo noqdo cusbitaalka dambe cusub ay noo dhismi doonto 2 sano ka bacdi mid midho dhala waxtarna u leh lagana maarmi karayo maanta dalka dibaddeeda in wax qabad ama adeeg cusbitaal aanu kafeyn karin looga baahdo dibaddeeda runtii waan idinku mahadcelinayaa madashan quruxda badan leh ee sida quruxda badan loo munaasibay kollayna haasan hadalkayga kusoo koobi doonaa waanaan u duceynayaa insha allah Hargeysa Group Hospital mas'uuliyadda intaa leeg ay qaadeen maanta waxaan u fadhinaa cisbitaalkii weynaaye Hargeysa iyo dib u qaabeyntiisii cisbitaal taariikh weyn inagu leeweeyaan oo muxuu ahaa taariikh qaranka ku leh waana maanta waxa fursad weyn bay noo tahay oo Ilaahay fadligii inay tan oo kale inoo soo hormarto inta muxuu ahaa aynu gacanta ku hayno hawlaha qaranka marka aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dawladda Taiwan ee ka qayb qaadanaysa cisbitaalka Hargeysa dib u qaabeyntiisa dib u casriyeyntiisa waxaan kaloo iyadana mas'uuliyadda ay qaadeen agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenka ugu dacaynaya in Ilaahay u fudaydiyo anigoo arkaya hawsha hayaan culayskay leedahay iyo maalin walba ugu yaraan 1,000 qof cisbitaalka imanayaan oo ay u soo doonanayaan adeeg caafimaad ama dad ka badan 1,000 qof marka iyagana waxa leeyahay miisaanka xasanaadka Ilaahay idin saaro mas'uuliyad baad qaranka u qaadeen mas'uuliyadaasna waxa la doonayaa inaad u soo jeedaan inta aad xilka haysaana taariikhdeedu xusto intaasi kadib safiirka dalka Taiwan u fadhiya Somaliland Ambassador Aden Lu ayaa jeediyay khudbad kooban oo ku saabsan taageerada Taiwan ee horumarinta adeegyada caafimaadka Somaliland. I was told that this building here was built in 1955 and it is a historic building and today we are very happy we're going to join this kind of the event so that in the future we can look forward a brighter future. Following the groundbreaking ceremony of the Taiwan Medical Center in October, I'm delighted to attend this function. And we spent a lot of time for building the transparent, accountable, and the trusted mechanism for deliver a high quality medical center that Taiwan is leading. And also we would like to take this opportunity to appreciate Mr. President Arrow, President Abdirahman. He instructed to let Taiwan to lead the decision of this important cooperation. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa munaasabadda soo afmeeray
iyadoo sidoo kale kormeer lagu sameeyey qaybaha loo qorsheeyey in la dumiyo. runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta waa taariikh cusub weeye in hasbitaalkii Hargeysa oo muddada intaa leeg dhisnaa oo 3 dawladood soo mareen waa dawladda Ingiriiska oo dhistay dawladda Soomaaliya iyo Somaliland muddo ka badan 70 sano ayuu dhismahaasi jiray in maanta aynu chance u helno oo Ilaahay nagu simo in dhismaha la dumiyo oo laga dhiso dhakhtar casri ah horta waa Ilaahay mahadi taasina waxay ku tusaysaa dadaalka ay xukuumadda wadajir wax qabad ee madaxweyne Cabdiraxmaan hogaaminaya ay ku jirto in ummadda Soomaaliland wax loogu qabto runtii muddada intaa leeg maamulada iskaga dambeeyay chance may helin dhakhtarka intaa leeg ee Soomaaliland ugu weyn ama geyiga Soomaalida runtii dhakhaatiirta hasbitaalada ugu waaweynaa in mashruuc intaa leeg lagu beeriyo la dhiso waa markii uu horeysay weeye taana waxaa nasiib u helay oo Ilaahay nagu simay xukuumadda wadajir wax qabad ee madaxweyne Cabdiraxmaan nagu hogaaminayo taasina waa Ilaahay mahadi madaxweynaha waan u mahadnaqaynaa Ilaahay cimriga caafimaadka u barakeeyo madaxweynaha waxa ka go'an in ummadda wax u qabto horumar la gaarsiiyo nabadgelyada la ilaaliyo la isku duubnaado ayaa madaxweynaha ka go'an marka nabadgelyo iyo isku duubnin la helo yaa horumar la gaaraa maanta marka alxamdulillah Ilaahay noo siyaadiyo horta nabadgelyadana horumarkiina waa ka waynu jeednaa hasbitaalka inta da'diisu leegtay Dr. Aadna aad uga soo sheekaysay iyo Dr. Askarba oo runtii muddo inta leeg jiray in maanta mashruucaas uu inoo hirgalo waa Ilaahay mahadi weeyii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dawladda Taiwan oo runtii saaxiibadeena our best friend in mashruuca ay noo keenaan Ilaahayna waxaan ka baryaa in inoo hirgaliyo berri ka maalin maanta waa maalin berrina ninkii nool sanad gudihii ama 2 sano wax ka yar waxaynu arki doonaa dhakhtarkaas oo dhakhtar casri oo qurux badan Taiwan Medical Center la yiraahdo oo 2 dabaqa oo casri oo qalabaysan dhakhaatiirta takhassus ay ka shaqeynayaan in la furo ummadeena ma aragtay halka loogu adeego miduma ku dardaaraya maadaama oo culays badan hasbitaalka Hargeysa group soo fuulay oo hasbitaalkii qayb dhan la duminayo oo dhismihii ka socdo in loo fududeeyo shaqaalaha wasaaradda runtii anoo aad iyo aad ugu mahadnaqaya shaqaalaha Hargeysa group oo agaasimaha iyo ku-xigeenkii staafkiisa ugu horeeyaan hawsha adag ay hayaan culays badan runtii soo fuuray oo dhinac walba ah oo wixii dhacabayo ku dul dhacayo in bulshada Soomaaliland dhakhtarka ku xidhan imanaysa gaar ahaan familiyadu inay yareeyaan trafficada iyo ma aragtay dadka badan isa soo raacaya maadaama qayb dhan la dumiyay oo ma aragtay dhinci laga soo gali xaqii laga baxayba ay meel badan xiran tahay in la fududeeyo shaqaalaha loo fududeeyo si dadka loo caawiyo qofkii patientkii soo galaya ama qofkii ka baxaya in ma aragtay SS ka la fududeeyo ta aad iyo aad baan ugu dardaaraya